magaalada Hargeysa waxaa xilliyada qaarkood loo yaqaanay harartii yarayd ama harar suqra sababtuna waxay ahayd magaalada oo nolosheeda iyo dadkeeduba ay xidhiidh dhow la lahaayeen magaalada Herar ee ka xigta galbeedka buuraleyda Itoobiya. waxaa kale oo lagu sheegaa sababta loogu bixiyay magaca harartii yarayd inay ahayd aasaasayashii magaalada Hargeysa oo marka hore ka yimid magaalada Herar, halkaas oo ay dhaqanka cuntada cuni jireen iyo habkay u labisan jireenba dadku uga ekaayeen kuwii Herar lagu yaqiinay. sababaha kale ee magacan Hargeysa ku yimid waxaa ka mid ah in meesha ay maanta Hargeysa ku taalo ay ahayd saylad ama suuq argaha lagu kala iibsado oo xilligaasi xoolaha nool ka qaalisanaa, waxaana lagu magacaabi jiray Hargegeys. markii uu magaca ku dhacay isbedelka cilmi afeedkuna wuxuu noqday Hargeysa. waxaa jirta aragti kale oo xooggan oo sheegaysa halka uu magaca Hargeysa ka yimid, waxaanay leedahay halkay maanta magaalada Hargeysa ku taalo ayaa ahayd wadada loo maro magaalada Herar oo xilliga ahayd goobtii xarunta u ahayd fiditaanka diinta Islaamka. sidaasi ayaana loogu bixiyay Hargeys oo isbedelka cilmi afeed ee dhacay ayaa ka dhigay Hargeysa. waxaa jirta aragti kale oo iyaduna tilmaamaysa sida uu magaca Hargeysa ku baxay asal ahaan, waxaanay leedahay aragtidaasi xilli hore oo dhulkay Hargeysa ku taallay iyo hareeraheeda ilaa xeebta badda cas ay haysteen dadka gaalaha la yiraahdo oo ay Oromada isku af yihiin, ayaa geedka dacarta ah oo meesha Hargeysa ku taalo aad uga bixi jiray u yaqaanay Hargeysa, oo macnaheedu yahay meeshii dacarta badnayd. isbedelka cilmi afeed ee dhacay ayaana ka dhigay magaca Hargeysa. magaalada Hargeysa waxay sanadkii 1991 wixii ka horeeyay ahaan jirtay caasimadii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo magaalo madaxdii gobolkii la oran jiray Waqooyi Galbeed oo kamid ahaa 18 gobol ee Soomaaliya ka koobnayd. wixii sanadka 1991 ka dambeeyayna waxa ay noqotay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo magaalo madaxda gobolka Maroodijeex. magaalada Hargeysa waxay juqraafi ahaan ku taallaa dooxada Galgodan ee deegaanada Ogo, waxayna magaaladu ka sarreysaa biyaha badda joog dhan 4377 mitir, waxayna fogaan dhan oo 160 kiiloomitir ah xagga galbeed ka xigtaa magaalada Berbera. juqraafi ahaan magaalada Hargeysa waxa ay saaran tahay buuro, dooxyo iyo deegaano carro-bataax leh. si la mid ah magaalooyinka kale ee ku yaala Somaliland, dhismayaasha magaalada Hargeysa waxay caan ku yihiin farshaxanka iyo qurxinta dhagaxa dabiiciga ah ee laga helo buuraha ku hareeraysan magaalada. guud ahaan magaalada Hargeysa waa tan ugu bulshada badan Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana ku nool shacab lagu qiyaasay 2 milyan oo qof. sida qoraallo la helay ay tibaaxayaan, waxaa magaalada Hargeysa dhismaheedu bilowday qarnigii 18aad qiyaastii markii taariikhda miilaadigu ahayd 1860meeyadii, waxayna ka bilaabantay dariiqada qaadiriyada oo uu horseed u ahaa sheekha loo yaqaano Sheekhul Beledka Hargeysa ee Sheekh Madar. sheekhaasi oo degay dooxa weyn ee magaalada Hargeysa u kala badha koonfur iyo waqooyi. waxaana la sheegaa in magaalada dhismaheedu ka bilowday koonfurta magaalada, gaar ahaan meesha maanta loo yaqaano Jameeca Weyn oo ahayd goobtii ay degeen xertii uu Sheekh Madar watay. sida lagu helay xogooday ka sheekee ah, waxaa magaalada Hargeysa gurigii ugu horeeyay ee dhismaha laga dhisay sanadkii 1883 kaasi oo ahaa masaajidka Jameeca Weyn oo ku yaala xaafadda Jameeca Weyn. arrintaasi oo sababtay inay halkaasi deegaan dad badan oo doonayay inay bartaan diinta Islaamku. dhanka kale, sida ay sheegayaan taariikhaha ka sheekeyga ahi, gurigii labaad ee magaalada Hargeysa laga dhisay waxa uu ahaa guriga hadda ku yaala xaafadda Sheekh Madar, lana yiraahdo Qudbiga Sheekh Madar, kaasi oo la dhisay sanadkii 1895. sida lagu helay qoraallo ka hadlaya aasaaska magaalada Hargeysa,
waxay sheegayaan in dariiqada qaadiriyada ee uu hogaaminayay Sheekh Madar qiyaastii 1860kii degeen meesha la yiraahdo Jameeca Weyn ee ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport, halkaasi oo ay ka samaysteen rug ama saldhig. waxay waraysiyada dadka xogogaalka u ah taariikh nololeedkii Sheekh Madar inoo soo tabiyeen in markii uu soo degay Hargeysa ay weheliyeen 3 wiil oo uu dhalay oo rag waaweyn oo dhalinyaro aan guursan ahaa, kuwaasi oo la kala odhan jiray Abubakar, Cumar iyo Xasan oo si fiican ugu hadli jiray afka Hereriga. waxaana 3daasi wiil dhashay gabadh reerkay ka soo jeedo Sheekhaas yahay oo uu Sheekh Madar Hererku guursaday. waxaana loo malaynayaa in 3daasi wiil hooyadood ay ku geeriyootay magaalada Herer ka hor intii aanu Sheekh Madar u soo safrin Hargeysa. sidoo kale waxa wehelinaya culimo badan oo Herer diinta ka baranaysay, culimadaasi oo isugu jirtay kuwa ay Sheekh Madar diinta wada baran jireen iyo kuwa kale oo ahaa arday ka dambeysay. culimadaasi la socotay ee ilaa iyo hadda ay suura gashay inaan magacyadooda helo waxaa ka mid ahaa Sheekh Axmed Boon, Kabiir Cumar, Xaaji Cumar Xirsi, Sheekh Maxamed Cabdalle, Xaaji Faarax Ismaaciil, Sheekh Haaruun Sheekh Cali Dhabarlow iyo Sheekh Xasan Guuleed. dhanka kale markii uu Sheekh Madar soo degay Hargeysa waxa uu watay farda iyo baqlo badan oo alaabi u saaran tahay, isagoo ku soo talagalay in uu beero ka hirgeliyo Somaliland gudaheeda, ogsoonaana inay beeruhu yihiin arrin ku cusub dhaqanka Somaliland oo aanay jirin qalabkii laga shaqayn lahaa beeraha. waxaana uu ku soo talagalay inuu qalabka dhulbeerista looga baahan yahay ka sii qaato magaalada Herer oo uu ku noolaa, maadaama aanay jirin dad Somaliland ka tirsan oo dhulka beeran jiray yaqaanana habka dhulka loo tabcado. waxaa lagama maarmaan noqotay inuu Herer ka soo kaxaysto dad beeraha ku xeel dheer oo laga barto habka dhulka loo beero, kuwaasi oo tafiirtoodii ay maanta degan yihiin Somaliland ilaa xilligaasina ahaa dad aad ugu dhow qoyska reer Sheekh Madar. waxaa kaloo jira qoraallo ay saraakiishii Ingiriiska ahaa ee ugu horreeyay ee Hargeysa soo maray ay qoreen oo dhammaantood sheegayaan inay jameecadii Sheekh Madar madaxda ka ahaa aasaastay degitaanka Hargeysa. xilliyadaasi ay soo mareenna waxay noo sheegeen inay jameecadaasi oo keliya Hargeysa deganayd. waxaana ka mid ahaa qoraayada iyo qoraalladay qoreen Kabtan Isweyni oo ahaa sarkaal Ingiriis ah ayaa mar uu sanadihii 1887 ilaa 1893 socdaal ku yimid dhulka Geeska Afrika, marayna meesha ay maanta magaalada Hargeysa ku taalo. waxa uu warbixin uu ka qoray uu ku yidhi magaalada Hargeysa xilligaa waxa ay ahayd tuulo ay ku yaaliin guryo kooban oo ka samaysan aqal Soomaali caws iyo ulo ah. waxaa tuulada lagu wareejiyay ood aad loo dheereeyay si dadka looga ilaaliyo dugaagga wax cuna oo halkaa ku badnaa, waxaana ku xeeran beera hadhuudh iyo arabikhibo badnaa. mar kale Isweyni qoraal uu ku qoray Hargeysa wuxuu ku yidhi dalka gudihiisa ma jiraan meelo si joogto ah loo degan yahay marka laga reebo goobo ay aasaaseen oo ay degan yihiin dadka diintu, kuwaasoo loo yaqaano sheekhyo, culimo ama wadaado. Brookman oo ahaa saraakiishii Ingiriiska soona maray Hargeysa 1905 wuxuu ku sheegay buuggiisa British Somaliland, Hargeysa waa deegaan wadaada degan yihiin. Sheekh Madar oo ah ninkii aasaasayna weli wuu nool yahay. haddii aynu tixraacno Isweyni waxaa degsiimadani aasaasay 36 sano ka hor sheekhani da'da ah oo ka yimid magaalada Herer kadib markii uu ku noolaa 20 sano. Sheekh Madar haatan waa nin da' ah, wuxuuna ku nool yahay guri ka yara fog dooxa iyo ceelasha oo uu Lord Delamere u dhistay istoor ahaan, siiyeyna sheekha markii uu dalka ka tegay. Louis oo buuggiisa Modern History of the Somali kaga waramaya xarumaha dariiqooyinka iyo dhulka ay degan yihiin ee ka hirgalay dhulka Soomaalidu degta sanadkii 1900 waxa uu yidhi mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee waqooyiga dalka ka hirgalay waa xarunta Sheekh Madar oo ah jameeco qaadiriyad ah oo degan Hargeysa, xubnaheedana ka mid yihiin dad ka kala tirsan badi qabiilooyinka Isaaqa. xaruntani waxay xilligaasi ahayd janno nabad ah oo ku dhex taalla dhul qolaadi ka dhex oogan tahay, kuna taalla goob ah halbowle xidhiidhiya safarada iskaga gudbaya xeebta iyo dhulka ogaadeenka. qoraalada saraakiishii Ingiriiska ee ku soo cagabixiyay dalka Somaliland soona maray Hargeysa oo ay markaasi jameecadu deganayd muddo 20 sano ka badan isla markaana ceelal uga qodan yihiin
waxa ay xusayaan in ceelashii ka qodnaa ay ka cabbi jireen jameecada Sheekh Madar iyo xoolahoodu. Ceelka laga cabbayay waxa uu ahaa mid dhagax hoosta lagaga soo dhisay oo ah farsamo aanay reeraha Soomaalidu ku dhaqmi jirin, waxaana ceelka dayactiri jiray nin Carab ah oo ka yimid Cadan, farsamadaasina ku xeel dheera. waxayna u dhowdahay in maamulkii Turkiga iyo Masaaridu 1874 ilaa 1884 ay u sameeyeen ceelkaasi jameecada Hargeysa sida ay biyaha Dubaarba ugu sameeyeen Berbera. Maxamed Cali Axmed oo isna qasiido u tiriyay Sheekh Madar wuxuu qoray: waxaad aasaastay Hargeysa oo ah magaaladaada nabadaysan. Sheekh Yuusuf Cali Sheekh Madar wuxuu aaraarta qasiido uu u sameeyay Sheekh Madar ku sheegay wuxuu Hargeysa ka aasaasay jameecaan qabiil ku salaysnayn. waxay qoraaladan iyo kuwa kale ee ka waramaya Hargeysa ee ay qoreen dad shisheeyaha oo ku soo cagabixiyay dhamaadkii qarnigii 19aad inoo muujinayaan inay Hargeysa ku abuurantay qaab jameeco diini ah. dhammaan qoraalada taariikhda Somaliland ka waramaya ee la qoray xilliyo kala duwan xusayana Hargeysa waxa ay qeexayaan in Sheekh Madar iyo jameecadiisu bilowday tegitaanka joogtada ah ee Hargeysa, waxayna qoraaladaasi ku magacaabaan in uu Sheekh Madar yahay aasaasihii magaalada Hargeysa. haddii aynu sida magaalada Hargeysa lagu degay eegno, waxa ay noo muuqanaysa in degitaanka Sheekh Madar ee Hargeysa ahaa mid ka duwan arrimihii ay bulshada Somaliland hore u soo arki jirtay ee caadada u ahaa. waxay bulshadu soo arki jirtay culimo reeraha soo martida oo soo dul degta meelaha guryaha reeruhu ka dhisan yihiin, sidoo kale meelaha lagu kulmo sida magaalooyinka, dekedaha, xeebaha iyo ceelasha waxa lagu arki jiray culimo ama sheekh soo dhex dega. laakiin goob duur jiqa oo cidlo ah oo aan ahayn meel la degan yahay sheekh iska degaa waxay ahayd arrin hor leh. bal aynu isla eegna sida degitaanka magaalada Hargeysa ku bilaabmay. haddii aynu dib u yara jaleecno sida ay Hargeysa xilligaasi ahayd, waxa inoo muuqanaya inay ahayd duur jiq ah oo ay qarisay dhir cufan oo kala duwan, iskuguna jirta kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban. waxay Hargeysa hoy iyo baragaadmo u ahayd libaaxyo raxan ah oo aan dad iyo xoolatoona ka nabadgelayn. dhulka hoose waxaa mulacaynayay masas noocyo badan leh oo badidoodu waabay sunahi ka buuxdo, qofka ay micida la helaana aanu nolol dhulka ula dhacayn. waxaa intaasi u dheeraa kaneeco gabood ka dhigatay dhirta cufan ee goobtani ku caanka tahay, dadkuna aada uga baqaan duumada ay qaniinyadeedu keeni karto. waxay goobtan Hargeysa iyo agagaarkeedu kulmin jirtay reere iyo qabiilooyin kala duwan oo lagu kala tilmaami jiray reer Ooga iyo reer Guban. sidoo kale waxay kulmin jirtay dadka kala degi jiray bari iyo galbeed, bulshadaasi oo ahayd reer guuraa aan meel go'an ku sugnayn. waxa kale oo goobtani ku dhowaad dariiqyo halbowle ah oo xidhiidhiya safarada u kala gudbaya xeebta iyo hawdka. laba safar oo waaweyn ayaa goobtani soo agmari jiray. safar wuxuu ka soo bixi jiray Herar, ka kalena wuxuu ka soo bixi jiray hawdka ilaa Baali. waxay labada safarba u ganacsi tegi jireen labada dekedood ee Berbera iyo Buluxaar, taasi oo ka dhigaysay goobtani bartamaha laanqayrta halbowle ah oo xidhiidhiya ganacsiga Herar, hawdka, Baali, Berbera iyo Buluxaar. marka la fiiriyo sida ay iskugu egyihiin deegaanada labada magaalo ee Herar iyo Hargeysa, buuruhuna ugu wareegsan yihiin labada magaalaba, waxay u muuqan kartaa in Sheekh Madar goobtani Hargeysa u doortay sida ay goobtu ugu eg tahay Herar, taasoo qoraalada qaarkood ay tibaaxayaan in Hargeysa loo yaqaanay Herar looguna magac daray magaalada Herar oo ay ka yimaadeen Sheekh Madar iyo culimadii la socotay, sidaynu ku soo sheegnay bilowga warbixintan. laakiin waxay taariikhda afka la iskugu soo gudbiyaa inoo tibaaxaysaa sawirkaasi ka duwan. waxay ila kala duwan oo laga soo xigtay dadka xogogaalka u ah taariikh nololeedkii Sheekh Madar inoo sheegayaan inuu Ilaahay tala saartay in uu u dooro goobta uu degayo. waxay Sheekh Madar iyo culimadii la socotay ka soo kici timeen magaalada Herar iyagoo farda fuushan, watana baqlo badan oo alaabi u saaran tahay. markii ay soo gaadheen halka uu dooxa Hargeysa ka soo unkamo ee laagaha kala duwan iskugu soo ururaan, ayuu Sheekh Madar joojiyay culimadii iyo xartii la socotay oo uu ku yidhi: Ilaahay ayaan tala saaranaynaa in uu inoo dooro halka aynu degayno. weysadaydan biyuhu ka buuxanayaan ka daloolinayaa,
dalool yar oo dhibic biyaahi ka soo dhici karto. Halka ay biyaha weysadaasi ku dhamaadaan ayaynu degaynaa. Waxaana la sheegaa in markii ay marayeen Hargeysa weysadii oo biyo badani ku jiraan uu furkii ka dhacay, biyihii oo idinla daateen. Markuu Sheekh Madar arkay biyihii oo weysadii ka wada daatay ayuu yidhi, alle ayaa qadaray inay halkani noqoto goobtii aynu degaynay. Goobtii ay biyihii weysadu ku dhamaadeen ayuu sheekhu go'aansaday inuu dego oo jameecada xarun uga dhigo, halkaasi oo hore u ahayd goob duur jiq ah oo lama degaan ah. Haddii aynu isweydiino xilliga uu sanadkaasi ahaa, qoraalada ugu da'da weyn ee sheegaya xilligii uu Sheekh Madar degay Hargeysa waa kuwa uu qoray Isweyni oo ahaa sahmiyayaashii ugu horreeyay ee dalka ku caga bixiyay, soona maray Hargeysa oo markaasi ay degan tahay jameecada uu Sheekh Madar madaxda ka yahay oo keliya, taasoo qoraalkiisu inoo sheegaya in 36 sano ay jameecadu deganayd. Qoraalada Ingiriiska oo idinla waxay tixraacayaan qoraalada Isweyni. Haddii aynu qoraalkaasi tixraacno, wuxuu sanadkii uu Sheekh Madar Hargeysa degay ku beegan yahay bartamihii 1860. Qoraalada kale ee kadib la qorayna waxa ay tixraacayaan qoraalada Isweyni. Sidoo kale wararka taariikhda afka la iskugu gudbiyaa waxay inoo sheegayaan taariikhdaasi la mid ah. Waxay waraysiyada dadka xogogaalka u ah taariikh nololeedkii Sheekh Madar inoo tibaaxayaan in goobtii ugu horreysay ee uu ka degay Hargeysa ay ahayd meesha loo yaqaano dabada cadaadda. Si halkaasi waxa aad ugu badnaa kaneecada oo laga yaabay inay dhaliyeen roobab badan oo sanadkaasi daay. Taasina waxay keentay in loo soo digarogto taagga yar ee jameeca weyn ay maanta ku taalo, lehna dabayl xawli ku socoto oo ka dhalata dabaylaha ay isku soo dhiibaan buuraha Hargeysa kaga xeeran dhinacyadu. Tallaabooyinkii ugu horreeyay ee Hargeysa laga fuliyo waxaa ka mid ahaa in jameeca weyn laga sameeyay dhul bannaan oo bilowgii hore ood lagu wareejiyay, lagana dhigay masaajidkii lagu tukan lahaa, diintana lagu baran lahaa. Arrintaasi oo kale waa mid ilaa maanta ka jirta meelaha aanay ka suurtagelin dhismo masaajid, kaasoo loo yaqaano mowlac. Tallaabooyinkii ugu horreeyay ee degitaanka Hargeysa waxaa ka mid ahaa in wadaadadii go'aansadeen inay degaan Hargeysa oo ay guryihii ugu horreeyay ka dhiseen goobta maanta loo yaqaano jameeca weyn. Guryaha dadka Somaliland ku nooli waxay ahaayeen aqal Soomaali u sahlaya guuritaanka joogtada ah. Haweenka ayaa qaabilsanaa samaynta, raritaanka iyo dhiska aqal Soomaaliga, taasoo xirfadaha dhismaha aqal Soomaaliyada iyo samaynta qalabka uu ka kooban yahayba ay ku xeel dheeraayeen haweenku. Qalabkaasi oo laga samayn jiray dhirta iyo doogga kala duwan ee dalka ka baxa iyo saamaha xoolaha la dhaqdo. Waxaa muuqata in loo baahday haween badan oo hawshaasi isku xil saaray, waxaana laga dhisay taagga maanta loo yaqaano jameeca weyn aqal Soomaaliya badan. Aqaladaasi oo ahaa guryihii ay ku noolaayeen culimada iyo xerta jameeca weyn. Hargeysa oo ah magaalo madaxda gobolka Maroodijeex waqtigii ay ka tirsanayd dowladii la iska oran jiray Soomaaliya waxa ay ka koobnayd 3 degmo oo kala ahaa: degmada Berbera, degmada Gabiley iyo degmada Hargeysa. Wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 oo ay Somaliland ku dhawaaqday go'aansitaanka qarannimadeeda, waxay Hargeysa oo ah magaalo madaxda gobolka Maroodijeex noqotay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland. Waqti xaadirkan ka kooban 8 degmo oo kala ah: degmada Gacal Libaax, degmada 26 Juun, degmada Ibraahim Koodbuur, degmada Axmed Dhagax, degmada Maxamuud Haybe, degmada 31 May, degmada Maxamed Mooge iyo degmada Macalin Haaruun. daawadayaal inta waxaynu ku soo afmeeri doonaa warbixin kooban oo aynu kaga warramaynay taariikhda magaalada Hargeysa. Inta aynu isugu iman doono warbixinta la mid ahna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh.